السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يا لي مروي waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa telefishinka qaranka Soomaaliya oo aad iyo aad uga qayb qaata isku xirka ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waa waqti dambe idinku badin mayo hadalka idinku badin mayo laakiin waxaan idin sheegayaa adinka waxba idin sheegmayo laakiin waxaan u sheegayaa madaxweynahayga Farmaajo inaan nahay daayarta dulman waxaan ku sheegayaa mudane madaxweyne dhalinta Soomaaliyeed 35 jir ilaa 15 jir waxa ay ku baaluqeen ay ku barbaareen barakac Bob Bililiqo Baagamuudo Busaarad Buufis iyo waliba bahdil shisheeye marka waxaan ku sheegayaa mudane madaxweyne waxaan nahay muraayadii dalka waxaan nahay daayartii dalka waxaan nahay dadka hadii aanay ku siboodin ee aanay kula shaqeyn aadan wallahi tilaabo qaadi karin waxaan nahay mudane madaxweyne dadka ku soo saaray dadka Soomaaliyeed dhamaantoodna way fahansan yihiin golaha shacbiga Soomaaliyeed markii lagu daray dadka dhalinyarada ah ee quality-ga leh ee danta dalka dadka iyo fahansan diinta waxa ay soo saareen madaxweyne quality leh madaxweyne ma ahan inaan ku dar xumaysnaano oo ku daryeel la'aano dalka dibadiisa iyo gudihiisa dadkii Soomaaliyeed runtii dhalintii Soomaaliyeed saddex baa loo qaybiyay cidda u qaybinaysaana waa ajnabi aan doonayn inaan waxa weeyaan dad noqono waxa ay u qaybiyeen saddex qayb waxa yiraahdeen adinku xaq jirbaatihiin oo wax alaalayaal waxay u baahan yihiin iyo tansiilaadka ay ku qarxinayaan ummadda Soomaaliyeed bay siiyaan qaybta labaad markay u diideen fadhi iyo istaag labadaba ayay qaybna waxay ku qarqantay sida iyadoo kaleeto qaybna qurbahay soo aaday qaybna waxay ku qarqantay badaha qaybta saddexaad waa hooyo iyo aabe gurigoodii oo halkan ka dhisan dub jir ku ah oo buushash ka dhistay ma garanaysaa magaalada banaankeeda hooyada 24 hours bacda inta dhisatay waxa weeyaan maalintiina qorraxdu dilayso habeenkiina qabowgu dilayo gurigeediina u muuqdo waxa ay la tagi leedahay gurigeeda waa nimankaas gaalada ah ee fadhiyo meesha waxaan ka codsanaynaa hadaan dhalinyarada Soomaaliyeed nahay si aan dalkayaga ugu soo noqono dalkayaga annaga oo askara dadkayaga annaga difaacayna waxaan ka codsanaynaa digreetada koobaad oo aad soo saari doonto insha Allah tacaala in ay noqoto inaad nimankaas gaalada naga kaxayso ama aad u samayso mandate badin ma ya hadalka waxaan leeyahay guulaysan Maxamed oo gadaal waliga ha marin sidii geesigiisiyaad go'aan adag baan rabnaa Soomaalida gabi ahaan gaaladu way kala gureen go'aan bay noo dageen go'aan bay noo dageen badde dhulkeena gaaxsan iyo baddeena gibilka weyn dhammaan geesh ciidan iyo gamboole iyo caruur gaar baa laga wada hayaa dhammaan geeska Afrikiya gaalo isaasi la soco geesiga aan dooranno guyaal badan dhowrayno geedigu waa inuu socdaa kuwaas geeska Afrika dhulka Soomaalida kala gurguray gabdhaha garacyada ku raray ragana geedaha ku xiray go'aan inaad yeelato gurboodkeeni dhistiya guulbaan ka doonaynaa gunti
guntimuhu cadowgu xiray guruub loo tababariya geesh ciidanahaa furfura go'aan inaad yeelato gurboodkeena tababarto gawaarida booda iyo madfaca guurguure iyo garnayl nagu wada xirtiya guul baan kaa doonaynaa gaadii kale waxaan lahaa geesiga aan dooranno guyaal badan dhowrayno shacabku waa gooman yahay geestaaduu taagan yahay gurbaankay ku tumaan gaarbay ka wada hayaan geediga gadaal lama fiirin kara geedigu waa inuu socdaa wax badan baan guulahayn ilmadu naga goboolahayd gaajadu geed noo surnayd gamboolaydu ooyayeen gurboodkeennii dhammaan gaajay la wada aad iyo aad ii raalli waa xamaasadaysnahay